maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta waxay soo afmeertay dhageysiga dacwadaha la xiriira natiijadii hordhac ahayd ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland. war qoraal oo ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan aadan xaaji cali iyo 9 garsoor oo kala ah ku-xigeenka gudoomiyaha maxkamadda sare maxamed cumar geele, cabdiqaadir axmed maxamuud, cabdiraxmaan xasan nuur, cabdiraxmaan jaamac hayaan, أحمد ديرية قالب، يحيى علي إدريس، محمد فارح سعيد، عبد الرحمن حسين عينان يا عبد الله عبد آدن أو يوهلين يان كاليها محكمة دستورية سهرة إسماعيل عبد الله ويعاون يان كالياش كلا خضر موسى عبدي عبد السلام موسى دعاله يا عمر عبد الوهاب أيامان توحي فرد بوحكو سوق بجبين دقيسك سديد دعوات الله حريرة نتيجة هردعة هيدا قلها وكيلة جمهورية الصوماليلاند sida qorshaha dhageysiga dacwadu maanta waxa maxkamaddu qorsheynaysay dhageysiga 9 dacwadood hase ahaatee waxa gunaanadkii dhageysiga dacwadaha soo xaadiri waayay hal musharax iyo qareenadiisii taasoo ka dhigaysa tirada la dhageystay maanta 8 dacwadood oo marka loo geeyo 14 dacwadood ay hore maxkamaddu u dhageysatay noqonaysa 22 dacwadood. fadhigan ay maxkamaddu ku dhageysanaysay dhammaan dacwadahaas ayaa u furnaa dhammaan dadweynaha iyo inay dhageystaan. sidoo kale dhageysiga maanta dacwadda waxa ka soo qayb galay korjoogayaashii doorashada caalamiga ahaa iyo kuwii maxalliga ahaa iyadoo maxkamaddu u eegaysay dacwadaha ay dhageysatay xeerka doorashooyin iyo xeerarka kale ee la halmala waxay sida ugu dhaqsaha badan ku soo saari doontaa go'aanka kama dambaysta ah si loogu dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland. sidaas ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maxkamadda sare dastuuriga ah oo lagu soo gunaanaday dhammaan dacwadihii ay maxkamadda sare dastuuriga ah loo soo gudbiyay ee la xiriira cabashadii ay musharaxiintii ka qabeen doorashadii May ka dhacday dalka jamhuuriyadda Somaliland. maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho Hargeysa.